iyadoo bilihii ugu dambeeyay ay xirnayd safarada dadka qaxootiga Soomaalida ah ay ku aadi jireen gudaha dalka Soomaaliya ayaa iminka dib loo fasaxay kadib markii ay iska kaashadeen dawladaha Soomaaliya iyo South Africa. toddobaadkan gudihiisii ayaa si rasmi ah loo bilaabay in dadka qaxootiga Soomaalida ah la siiyo warqadaha socdaalka kuwaasi oo ay ku aadi karaan dalkooda, waxaana dirbo bilowday safarada dadka Soomaalida ah ay ku laabanaya dalka Soomaaliya. haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town ayaa soo dhaweeyay arintani, iyadoo dhinaca kalena aan la kulannay dhalinyaro ku laabanaya dalka Soomaaliya kuwaasi oo u socdaalaya magaalada Johannesburg si ay uga qaataan waraaqda go home-ka ah. oo ku magac dheer shafto wallahi niyahu aad aan soo dhaweynaya in go home-ka la fasaxo oo la tagi karo Soomaaliya. adiga hadda muddo xirnay 3 months wada xirnay iyo 3 months wala socdo marayna oo xirnay dadkii intii badan wallahi waa socday laakiin ma sha Allah hadda aan aad iyo aad u soo dhaweynaya maanta waxaan arkay dad fara badan oo Cape Town tagay job uga socda si ay xaq uga sii baxaan raba aan arkay aad aan u soo dhaweynaya safarka cusub iyo dawladda Soomaaliya howlaha ay qabatay. والله ما شاء الله انت يرتو هذا جيت waxaan jirnaa xogaa faalo cusub oo ma sha Allah hadda ay wado marka haddaan nahay dhalinyarada Koonfur Afrika ku nool qaasatan reer Cape Town ma sha Allah aad iyo aad baa uga dhacsanahay aad iyo aad aan u soo dhaweynaa in barnaamijkaas aad u faraxsanahay hay dad oo ku daalay in asoo laabanaa rabnaa soo dhaweynaa marka madaxda fasaxday ديارنا وحاولنا أن أسأل الله والله ودكنا والله. السلام عليكم. سفر كله فعادي أدبر فرح سنة ما دام وين بدن وحيرنا مركب عادي ولا في فارس كده دبابة كوسعة تكون هالكاس أنا بحياة ساس عادي أدبر فرح سنة وأنا نبغى بريان أنا ما ممكن كي واحد كسر شقية لمان ركزوا قبل قلبي. مجيء وعلى ده حسين علي مكان وحال وصلنا ودكين وسوماليا. اوكي بقول له ادي انا خلاص انا بقول له لا تنشل عشرات ما دام انك حد سفر دوره او الحريق dadkii oo hore u socday oo la xiray ma taran dib loo koro adi aad u faraxsan dawladda Soomaaliya safiirka loo soo magacaabay dawladda Soomaaliya oo wadanka la keenay adi aad u faraxsan hay meeqa bilowda ku xayirnaa gobolkan door bilood hadda waa soo dhaweynaysaa sida wanaagsan ee loo fasaxay dawladda aad iyo aad. arrintani ayaa noqonaysa dadaalkii ugu horeeyay ee ay ku tilaabsato safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalkani Koonfur Afrika, waxaana jira Soomaali doonaya in ay dib ugu noqdaan dalkooda hooyo. Xasan Kaafi Maxamed Shire, Home Cable TV, Koonfur Afrika.